waxa la arkay inay tahay xilligii ku haboonayd ee Soomaaliya hilba lagala dhici lahaa lana boobi lahaa Ethiopia iyo maxaan ku ilaa cid walba oo awal hore dan iyo damac kaga jiray Kenya iyadoo oo marka baylahda arkaysa qorshay diyaarisay qorshaha ay diyaarisay waa sida uu sheegay yani xogayaha joogtada wasaaradda arrimaha dibadda in la dejiyo xaaladda la dejinayana waxa ku dabaqan in yani dalalka urur goboleedka igaad ku jiray Soomaaliyana qaybta ay ka tahay Ethiopia qaybta ay ka tahay Kenya ay qaybta ka tahay in ay wadaagaan khayraadka biyaha ama khayraadka badaha oo dalalka aan badaha lahayn oo dalalka aan badaha lahayn ay dalalka badaha leh badsiyaan oo haday qaataan ayna dambi ahayn noocaas wariye lama wada leh Kenya Ethiopia meel ari u daaqa ma laha moogday biyaha saraan inay dhuuqaan soo agara in badihii la wadaago oo khayraadkii badaha la wadaago yaa uu ka bilowdaa qorshaha Kenya ay diyaarisay kuna dhamaadaa Soomaaliya way soo dhaweysay Soomaaliya way soo dhaweysay xagee ku soo dhaweysay way soo dhaweysay uurka ka soo dhaweysay بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل وناكسن كسو دوادا برنامج كان دبك هذا qodobkan waxaynu ku eegi doonaa dawladda Kenya wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegtay in ay ka shaqeynayso in la dejiyo xiisada u dhaxaysa dawladaha Soomaaliya iyo Ethiopia taas oo muddooyinkii ama bilihii ugu dambeeyay si weyn u soo shacab baxday kadib markii dawladda Ethiopia ay ku dhaqaaqday tallaabo gurracan oo markaasi ay heshiis kula gashay maamulka Somaliland iyo sidoo kale waliba mid kale oo ka dambeeyay oo ay la gashay maamulka Puntland hadaba bal waxaynu eegi doonaa xiisadaasi ay dawladda Kenya sheegtay inay ka shaqeynayso sidii loo dejin lahaa iyo waxyaabaha ku gadaaman waxaana ila jooga saaxiibka jaamac soo dhawow wasaaradda arrimaha dibadda waddanka Kenya waxay sheegtay inay diyaarinayso in la dejiyo xiisadan xasan sheekh maxamuudna waa kii halkan yimid xoga soo baxayna waxay sheegayeen in Ruto uu kala hadlay arrinta qadiyadaas maxaa ka ognahay arrimahan dhacay بسم الله الرحمن الرحيم وسلام يا جودهم بمدة الصوماليات ميل كستي أي جوجان با وحن له سلام الله عليكم إن حسدا كده على سن إثيوبيا يا صوماليا كده لا تجمع والدة إثيوبيا يكودون يسوا إن أي قريب كم ذا بري يبيها دولك الصوماليات كلها دعوة إن سيابك كل دوم بدوني ذوق هذا الشيء ده الله بدن بماركتي صدق أفرتي بلود الصور دافيبا taagna oo la doonayay xiisadu in ayna sii fogaaneen Ethiopia waxay u muuqataa gardarro garab oo maxaan ku ilaahay ay to gabahaysa maadaama hadda dhinacii arrimaha dibadda markii hore ay Soomaaliya kaga guuleysatay oo guuldarrooyin waaweyn Ethiopia dhabarka loo saaray haddana Ethiopia yani waxba kuma qaadanin haba yaraatay qawaaniinta iyo shuruucda caalamiga ah ee kala xadeynaya dalalka dariska ama guud ahaanba dunida uma ayna maaragtay joojinin umana joojinayso Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed Calina waa kii hore u sheegay 120 milyan oo yani 110 kamid oo cayd qaaqaawan oo Soolama ay tahay yaan hor taaganahay oo dan ka soo qaadayna hadii xaaladdu ay adkaato oo meel aan ku sii hayna dadka ma ay jirto waxaan badda cas oo aanu bar ka helo ahayna nama joojiyaan namana maaragtay qaboojiyaan arintaas Soomaaliyana yani jawaab ku haboon ama ku filan kama ay sabixinin haba yaraatee waxay iska noqotay un Soomaalidii wax iska dhalanteeda oo aan maaragtay laga soo qaadin xaalad waaqici ah oo u baahan go'aan adag iyo gacan bir ah in laga la hortago iyada oo la kaashanayo saaxiibada caalamiga ah iyo ummadda Soomaaliyeed tani waxay markaa sii badisay damci Ethiopia qabtay dalalka dariska uhuna waxay u arkeen maanta Soomaaliya in ay joogto xilligii ku haboonaa in laga faa'iideysto xilligii ku haboonaa in laga faa'iideysto Soomaaliyadan indhaha soo taagaysa ee adigu aad arkayso xagee joogtaa bari sheeg meesha joog wax Soomaaliya ka hadlayso ma yaray xasan sheekh sootan xataa madaxweynaha tibaha la baxay meel walba ordaya Ethiopia kaadi kaga lisay madaxweynuhu iyo yani marka nidaamka diblomaasiyadda laga hadlayo
dadaal bay sameeyeen dadaalkaas ay sameeyeen weliba guulaha waaweyn ay ku gaadheen ma ayna yani u yeelin ahmiyaddii uu lahaa soomaaliya iyadii baa isku laabatay kii aan lahayn guuluhu gaadhay oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee dadaalka sameeyey ayaa dib waxa weeyaan lugaha isagaga maray qorshihii isagu uu waday soomaalida iska hor keenay meeshii ummadda uu jahayn lahaa ee ummadda uu horkici lahaa ayuu dalkii wuxuu geliyey maxaan ku idhaahdaa tuuxinjire fajaas iyo warqado isagu uu soo qortay inuu dadkii kusoo dhex tuuro dadkiiba inuu ka sii jeediyo haba yaraatee ee wax uun yani difaac qaran ah in la sameeyo midnimadiibuu kala daadiyey dalkii oo dhammaabuu burburiyey nidaamkii dawliga ahaabuu meesha ka saaray nidaam kaste oo laba qof oo soomaaliya si uun ay isugu aamini kartay yuu digada ka dhigay ummaddii waxay noqotay dib inay iyada isu wada qabsato oo soomaalidii qofba qof saloosho oo xamar naftirkeedii ay iswada gaado xamar naftirkeedii in iyadii ay kala shakido oo aqalba maya laysma gaadaynin waxyaalo laga midoobaa jira wixii kaliya qadiyada guud baa kamid ah qadiyadii guud iyadoo laga midaysan yahay baan ku yiri madaxweyne xasan baa kala tuuray wuxuu kala tuuray markuu intuu soo kacay waraaqaha yiri waraaqahan aan anigu rabaa dastuur ka dhiganaya markaasi ayaa dadkii iyo dawladii iyo nidaamkii meesha u wada jeegay baarlamaanka Soomaaliya dastuurka wax ka bedelay waraaqana ma ahayd dastuurka Soomaaliya weeye ma lagu kalsoonaado oo la garab ma iska daa hadda waxaas kuma murmayne xasan isaga kala tiray Soomaaliya isaga cadawga u loogay isaga ayaa kalifay maanta dalkii Soomaaliya inuu baylaha noqdo Soomaaliya garan wax maanta dawladda iyo nidaam oo lagu kala soonaan karo oo Soomaaliya ka jiraahina ma uu jiro shakhsi isagu danaysanaya oo xabada xanjada cayrsanaya hanka badanna aan lahayn hawo ka badanna aysan kuwa jirinba ya meesha yimid waxa la arkay inay tahay xilligii ku haboonayd ee Soomaaliya hilba lagala dhici lahaa lana boobi lahaa Ethiopia iyo maxaan ku idhaahdaa cid walba oo awal hore dan iyo damac kaga jiray Kenya iyadoo oo marka baylahda arkaysa qorshay diyaarisay qorshaha ay diyaarisay waa sida uu sheegay yani xogayaha joogtada wasaaradda arrimaha dibadda in la dejiyo xaaladda la dejinayana waxa ku dabaqan in yani dalalka urur goboleedka igaad ku jira Soomaaliyana qaybta ay ka tahay Ethiopia qaybta ay ka tahay Kenya ay qaybta ka tahay in ay wadaagaan khayraadka biyaha ama khayraadka badaha oo dalalka aan badaha lahayn yamayadu badsiisa oo dalalka aan badaha lahayn ay dalalka badaha leh badsiyaan oo haday qaataan ayna dambi ahayn Kenya iyo Soomaaliya waxay isku haysteen halkan bay isku haysteen Soomaaliya meel soo isku ma haysan laguma in wixii yani ay noqoto inuu dhoobo waraaq yaa marka meesha ku dhiban wada waa wada leenahay soo garan meelaha ariyuhu daaqayaan noocaas waa riye lama wada lee Kenya Ethiopia meel ari u daaqa ma laha moogay biyaha saraan inay dhooqaan dalay raare ku dhinta soo garan in badihii la wadaago oo khayraadkii badaha la wadaago yaa ka bilowda qorshaha Kenya ay diyaarisay kuna dhamaada Soomaaliya Soomaaliya way soo dhaweysay Soomaaliya way soo dhaweysay xagee ku soo dhaweysay way soo dhaweysay uurka ka soo dhaweysay uurka ku jira Soomaaliya muhiimadda laga hadlaa moogday maxaan ku dhahaa marka maya waa sida ay tahay halkan madaxweynuhu uu yimid labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Kenya way wada hadleen arrimaha laga wada hadlayna maxaan ku idhaahdaa يعني قلبك لبعض بوها شاتك لقى هذا سيدا الشيء مهمة شاتك يا هاي ماركتايتو شاتك محري مايا مدحوينها وحكر السنة يا حقا شلمان وشاتك أدل صار قلنا كياتي هاي بدي ده شاتك جينجر دميرها زمان عشورتي دي مايا عشورتي ما حيد هذين لعق حدا فيها نصارنة لعقتن يا قات عدد حسن شيخ بقاتي كان يرى كمان ذكرت ويتشوشين ده وحي اللي أركبه حسب ما نصار سوماليا ما هو ما فيري حسن الشيخ ومدحونها الصومالية وحن يعني ما وحن لقى الشيء يو هديس تشيرين لقوا ما الشيئين صح دحولوا مدحوني الصومالية واحترامية وشرفية وان قيميننا وان قدريننا لكن هذانا وحا كتشرو ولا شيء صارتوا
shaqadii ummadda Soomaaliyeed ay u dirisatay ee dawladnimada ahayd iyo hogaamintii qaranka Soomaaliyeed shaqa aan ahayn oo jaad walayn iyo maxaan ku idhaahdaa to maaragtay iyo ku jira maya tii qaranka ma hayo tan buu haysta isaga u gaar u haystaa shaqooyinka oo haysto waa mid ka dhawaajisay dad badan ee Kenyaati iyo xitaa ka dhawaajisay tiimu marka iyo qodobkan kale ee arrimaha yani Kenya hadda ay wado qodobada laga hadlayay bay qayb ka ahaayeen muhiimadu marka waxay tahay Kenya waxay u aragtay xilligan Kenya in Ethiopia garab saarta ayadu ma garab saarnay kulay xaaladda dejinayna laakiin wadanaha iyo masaalixda Ethiopia ka shaqeynaysa danaha iyo masaalixda Ethiopia yay ka shaqeynaysaa oo waxay uga shaqeynaysaa xaaladdan in la dejiyo Ethiopia dan ugu jirtaa xaaladda oo la dejiyo waa danta Ethiopia marka hadii xaaladda laga dejiyo meeshadana way iska qaadanaysaa hawsheedana way wadanaysaa hawshana waa la dejinayaa hadii marka yani Djibouti-na way nala ogtahay tii qorshaha marka Djibouti iyo Kenya ay wada og yihiin ee urur goboleedka IGAD-na loo bandhigay ee la rabo in la yiraahdo urur goboleedka IGAD waa inuu ansixiyaa in la isticmaalo in dalalka aan badaha lahayn ay isticmaalaan dalalka badaha leh badahooda iyada oo iyagu ay dekada ay rabaan ka samaysanayaan goobta ay rabaan ay ka samaysanayaan iyagu ay maamulanayaan dalkaasina uusan haba yaraatee ee maamulka dekada la isticmaalayo wax saameyn ah ku yeelanaynin yani percentage markii la yiraahdo boqolkiiba 10 oo kale ama boqolkiiba 20 oo kale ee canshuur sanadada ka soo xaroota yaa dalka lagu celinaya intaas ay noqonaysaa faa'iidada yani Soomaaliya ka soo gasha marka qorshahani waa qorshe daba dheer Imaaraadka Carabta dabada ka riixaya Imaaraadka Carabta wuxuu yahay yani budhiga u ah in xagga la soo maro heer gobol arintii la gaarsiiyo Ethiopia-na eedda laga leexiyo dawladda Imaaraadka Carabta oo bixinaysa fanka iyo dhaqaalaha yani lagu socodsiinayo hindisahana ay mar walba meesha ku haboon ka soo gasho yani Soomaaliya la xasamay saaxiib leeyahay Imaaraadku xasanna saaxiib leeyahay maamulada Soomaaliyana mid walba si gooni ay saaxiib u leeyihiin dhammaantood mid ayna wax un siinin ma jiro mid walba wixii uu maaragtay xoogaa uu maalmo isku yar maaragtay yay siiyaan intaasay dalka kula yeeshaan abina saaxiib gooni u leeyihiin tani marka waxay ka dhigan tahay dalkii Soomaaliya oo la isku haysto oo ay dalal kale isku haystaan yaa isku haysta Imaaraadka Carabta Soomaaliya bayna aqoonin Ethiopia Kenya Djibouti iyo IGAD yaa isku haysta Djibouti-na maxay rabtaa xasan Soomaaliya socdo Kenya la weydiin meeshan masaalix iyo dana siyaasadeed baa la kala leeyahay masaalixda iyo danaha siyaasadeed ee la kala leeyahay ee la kala riixanayo ayuun bay muhiim tahay dal waliba inuu maslaxadiisa ka dhaxarko hoggaan adag mas'uul adag iyo nidaam dawli oo shaqeeya ayuun baana ka dabaalan kara jaamacu marka wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya hadda waa magacawday oo nin waliba adag ba meesha la geeyay asal ma doorshow asal ma doorshow wasiirka arrimaha dibadda ka soo Ahmed Macalin Faqima asal ma doorshow ana ba kula haba dab wax meesha yaala mushaarkaaga qaado danahaaga qabso hadda Nairobi jooga Soomaa joogaan ma aqaan fiiri markay sida nidaamka meesha yaala wuxuu yahay wasiir kasta iyo mas'uul kasta oo dawliya waxa weeye xilka waa loo magacaabay mushaarku ku qaadanaya shaqadana dad kala qabanaya okay ikaadi markay sidaa tahay wasiirku oo soo noqon doonaa ee Soomaaliya intaasoo isbahaysi ay af ku soo wada kala hayso u heshiiyeen ee qorshaha ka wada shaqeynayaan waliba Ethiopia danaheeda laga shaqeynaya u muuqato miyaysan dadka Soomaaliyeed waajib ku hayn madaxweynaha iyo xukuumadda iyo dadkan wadanka xukuumay iska rabtaagaan inta la xagan lahaa ee mijaal lagu dhigi lahaa ee wax laga sheegi lahaa ee la ceebayn lahaa ee la garab roori lahaa mas'uulka ama madaxweynaha ummaddu marka uu rabo inuu ummadda hogaamiyo oo dalkan isagu uu yani garwadeen u noqdo ayaa uu muujiyaa mas'uuliyadda iyo dareenka Soomaalinimo ama wadaniyadeed ama mas'uuliyadeed markaas ayaa ummadiisa uu ugu baaqaa oo uu ka doontaa garab istaag ummadda Soomaaliyeed waa ummad ku fiican in la hogaamiyo waa ummad ku wanaagsan wadaniyada iyo maxaan ku dhahay waliba caadifada xilliyada ay xaaladuhu taagan yihiin ummad aan gabanin weey
ummad geesiyaala weeye ummad go-aanka ay qaataan mar walba ka midho dhaliyo weeyaan ukaade soomaaliya waxaa halaagay hoggaan xun xasan sheekh baa kow ka ah madaxweyne jaad ka shaqaynaya ummad ma hogaamin karo madaxweyne aan ka xanuunsanaynin dhibaatada dalkiisa ka jirta dal ma hogaamin karo madaxweyne ummadda oo xukumo aan aaminsanayn inuu xukumo ummad ma hogaamin karo xasan marka aad fiiriso hankiisa iyo qaabka uu wax u wado iyo qaab shaqeedkiisa iyo siyaasadda uu ku shaqaynayo marka aad fiiriso ma aha shakhsiyadiisa waxa weeye dalna wuxuu ka yaqaanaa muqdisho dadna mudulood soomaaliya baa intaas u yaqaanaa waa xaqiiqda meesha taalla si dhab a marka loo hadlayo dalka soomaaliya muqdisho u yaqaanaa dadka soomaaliyeedna mudulood buu u yaqaanaa muqdisho waa caasimadii soomaaliya muduloodna waa reerku ka dhashay waa reer soomaaliyeed oo sharaf leh weli waa ixtiraamaya laakiin ceebta iyo waxaan aan sheegayo waa wax xasan sheekh ma aha wax beesha aniga xasan sheekh baan ka hadlayaa siyaasadiisa ma aha waxaan ka hadlayo shakhsiyadiisa mas-uuliyadiisaan ku iri hogaamineed intaas ku koobada mas-uuliyadiisa hogaamineed madaxtinimadiisa siyaasadiisa dhammaan marka aad fiiriso wax uu Soomaali uga baahan yahay xasan sheekh haba yaraatee ma jirto waxa uu u arkay Soomaalidii iyo ummadii iyo dawladnimadii iyo jiritaankii qaranka Soomaaliyeed inuu Muqdisho ka bilowdo Muqdisho ku dhamaado dadkeeduna mudulood yahay waa inta yani waa isaga siyaasadiisa ee siyaasi ama hogaamiye leh han qaran oo le maanta Soomaaliya xagee ayay ka dabacsan tahay xagee laga adkeeyaa cadow oo dhan baa kugu soo foorara oo tooshkii cadow waa kugu shidan Soomaaliya garan seed ula challenge gareysa maanta xasan sheekh waxay ahayd inuu la challenge gareeyo dalalka dariska iyo dawladaha shisheeye in uu maanta yani caalamka doorka oo dawladnimada Soomaaliya ka joogto caalamka inuu tusayahay in uu maxaan ku idhaahdaayo qoor iyo la meeraysto deni iyo maxaan ku idhaahdaa Shariif Sheekh Axmed iyo Madoobe iyo lafta gareen inuu la meeraysto oo uu yiraahdo kuwan ay u soo ordahaya deni baa xagga u orday Axmed baa xagga u sii socda maya hadduu hoggaan muujiyo mas'uuliyad muujiyo Soomaalinimo muujiyo asaga ayaa aabi iyo hooyaba u noqon lahaa xumaantu isaga ka bilaabatay foolxumada isaga keenay ceebta isaga dhigay isaga ayaa qarankii Soomaaliya lugaha qabtay oo cadawgiisa u loogay xaqiiqda marka Rabbi subhanahu wa ta'ala wuu arkaa wax dan iyo muraada oo aan kale yahay maanta ma ay jirto laakiin madaxweynihii loo doortay dalkan inuu badbaadiyo maxaa la dhihi jiray markii uu cusbaa dal xoreey waxa kale loo dhanaa كلي مدحوينه برمضة حسن شيخ صبر مضى ما هذا وحول نقضي بقية حسن شيخ بقول نقضي ما دلك الدولة النمدي ما أدي هذا حوار رجع كله راي ماشى حمزة بحكي سوي سامية ما حكي سوي حمزة حسن طالع لكن ما حقيقة إن لقاها فيري أنا دليش أنشيدين إذا ما أنشيدين وقوة عدان ما هو وحقر السعودية وحضر السعودية ما ومد الصوماليات إلهي بأنا مرخاتي كأون مرخاتي قشانية إن أنا حسن شيخ دول مهنين وأنا محنكورا نعيب شخصي يمد الرير يمد محنكورا إلى هذا أنا وحكي له أي سجيرين سومالنا قرا لكن إنه بيجي قرن كالصومالية دي إلهنا وكم مرخاتي ومد الصومالياتنا وكم مرخاتيو ما أنت ماشي أي صومالية تشوفت يا إنه عدينا إن ما maxaan ku ilaahay qofba intuu soo xogay Kenya intuu soo istaagay inuu yiraahdo waxaanu ka shaqeynaynaa heshiis aanu ku dejinayno xaaladda ka dhex aloosan Soomaaliya iyo Ethiopia soo ku dhihi kara yaa awoodaas iyo waa xogayaha wasaaradda arrimaha dibadda weeyaan soo agar xogayaha inaga mid u jawaaba maleenahay dalkeenu maleeyahay xasan baa xogayaha isaga madaxweynaha على بلد من ليله يا يري وحبك كم تيران يعني وحب بيني لما قرنا أيه كان يوحي شيء يسوي وحبك كم تيران مرده سو ما قرأ
maxaan ku iigadna waxba uma naadirsan ma dhihin annaga dal Soomaaliya la yiraahdaan cid danaha iyaga ka shaqeynaysa ama wakiil nooga ana ma jirto Kenya waxay ku jirtaa maanta booska wakiilka Soomaaliya ee arrimaha diblomaasiyadda iyo xal u helidda xiisadda Ethiopia Kenya hogaaminaysa way ka soo gudub marka ma dalba dal wakiil danihiisa uga noqdo maya kama noqday taas lafteedu haday iyagu sheegeen anagu Soomaaliya kuma sixi karna moogtahay waxay Kenya sheegatay Kenya ma qajar bashay jamaya ma beeniso fiiri dawladda Soomaaliya cad Soomaaliya beenin ama xubeeniye ma beenin intii Kenya wax kale oo aan laga ba hadlin yu ka hadlay oo ku leeyahay Soomaaliya mowqifkii ay taagay war Xasan ma ka Xasan Sheekh waa ku filan markuu soo baxay uu noo sheegay kan wax cusub nooma sheegin waxaan rabnaa inuu yiraahdo warka uu sirwe beeniyeen hadaan wax ku filan maya xogahayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda warkay wax hadlayso xogayaha yar askaraada sirwe wax noocaas ah leeyahay soo xogayaha ma wax hadlayeen xogayaha shaqada dawladeed buu hayaa ba ku filan u jawaabay ma shaqada dawladeed buu hayaa waxay ahayd inuu yiraahdo xogayahaas iyo dawladda Kenya way mahadsan yihiin wax anaga aan u dirsanay iyo wax anaga Ethiopia dhexdhexaadin oo aan u baahanahay ma jiraan Ethiopia hal qodob baan isku haynaa qodobkaas markay ka tanaasusho anaga toos wada hadlay xabad oo dhexdhexaadinaya okay aan ka soo gudubno wasaaradda arrimaha dibadda cali balcadkaas muddo hadda sii joogay wasiirka arrimaha dibadda ama wasaaradda arrimaha dibadda ma wasiirka arrimaha dibadda idman ha ka ilmaamin inta waana title-kiisa siisaa war cali balcad wuxuu ahaa si haye wasiirka arrimaha dibadda idman ka soo gudub Axmed Macallin Fiqi ninkii odayga ahaa ee daljir hore ahaa ee dabjiriid la soo dagaalamay daljir aal ba ku dhaxayso hay hadana dabjiriid ay wada shaqeystaan ba wasiirka arrimaha dibadda noqdo horena waa wasiirka arrimaha gudaha xiisadan iyo xaaladan taagan iyo jahwareerkan dhinaca maaragtay dalalka dariska Axmed Macallin Fiqi muxuu ku soo kordhin doonaa Axmed Fiqi wa salaamaya horta hay Soomaalian garan salaan kadib looguma talagelin Axmed Macallin Fiqi inuu shaqo dawladeed qabto qorshahan kuma jirtaba shaqo dawlad qabanaya maya waa shaqo wuxuu qabanayaa mushaarkiisa inuu qaato kaliya in la siiyo biil caruurta uu maartay ku beesho iyo magaca labada in la isugu daro laakiin inuu shaqeeyo iyo inuu wasaarad maamulo iyo inuu maxaan ku dhahay nidaam dawli ka shaqeeyo nidaamka dawliga soo inuu horta jira ma marka macallin balcad ba shaqeynaya ma nidaamka horta dawligu soo inuu jiro oo shaqeynaya ma hadduu jiro maxaa loo magacaabo waa koox waa Xasan maraba ma inuu isku ilaaliyo hay eeg ummadaha la magacaabay ma aha ummad dawladeed loogu talagalay dawladnimo iyo dal iyo jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maanta meesha ay joogto maxaa inagu xun maxaa inagu san inta la yiraahdo in dalkan loo geedigeliyo goobta uu joogo goobka xoogaan nabad fiican Soomaaliya garan laakiin Xasan Sheekh wuxuu isku xiray koox yani uu isleeyahay way qaylo badan yihiin ama way kugu qayliyaan oo maxaan ku ilaahay markaad wax qaadato kuwii dadka maaragtay to aad ku jahayn lahayd iyagana aad iskaga sii jeedin lahayd waa inay kugu hareereysnaadaan dadkan wuxuu u dhistay inuu kursigiisa ku ilaashado Soomaaliya garan reeraha ay ka soo jeedaan sambal ahaan loo Xamse waa sambal Soomaaliya garan Fiqi waa sambal ninka la yiraahdo Xasan waa sambal Fartaag waa sambal Xasan waa sambal gaariisna kii reebudlaaga ah wuxuu ahaa wixii xoosh miyuu ahaa waa sambal kale waa sambal la hor dhigayo maamulada ay ka soo jeedaan ama beelaha ay ka soo jeedaan absamay Xamsa sambal ah Mareexaan Fartaag ba sambal ah habar gidir waxa sambal ah ninka la yiraahdo Fiqi harti waxa sambal ah ninka la yiraahdo xoosh nin walba hogaamiye kooxeedka wasiirada ka Soomaaliya ma aha wasiir ma iyagu wasiirada federaalka way ma iyagu warhaga awood badan waxa xoogaa qaylada soo wax meesha fiiri hay wasiirada way og yihiin maanta cali xoosh inuu wasiir arrimo gudaha iyo federaal ahay uu og yahay hay sababta meel laga maraa ma yaqaan shaqaysiyo ma ahaba shaqays macay ninka la yiraahdo Axmed Macallin Fiqi inaanu wasiir arrimo dibadeed ahayn isna wuu og yahay ilaahina wuu og yahay ummadda Soomaaliyeed wuu og tahay Xasan Sheekh iyo Xamsa u magacaabayna way og yihiin Soomaaliya garan laakiin muhiimadda iyo ujeedada la leeyahay waxay tahay in markii xaafadaha dhexdooda la joogo la yiraahdo wasiirkii baa sidaa yiri aan soo ka soo gudbin wasiirkii baa markaa sidaa yiri waxa macno oo hay keenaysaa war dalkan haad iyo helib u dhaxeeya dalkan iyo tani waa dawladda madax banaan way kuwaas Axmed Madow waa dawlad madax banaan jamhuuriyadda Jubbaland la yiraahdo maxaan ku leeyahay dani waa jamhuuriyad madax banaan oo leeyahay jamhuuriyadda Puntland xagulaad tani koola meesha Itoobiya la aaday
axmedowna kenya la aadahaya hay soo hagara hay qorqorna kenya bahashi la aadahaya Ethiopia la aadahaya hay meeshii bahalkii ma kan waxaan jeclaa lafta gareen qorqor meeshii la aadi lahaa la isku haystaa qorqor meel loo soo isagu usili xaq dheer eg dadkii rag cadaalad waaya sidii cawsha kale ya dalkii iyo dadkii eg dalka iyo dadku dawladii farmaajo waa la dirirayay ayadoo la dirirayo ayaa haddana dalku uu si guud u midaysnaa mabaadi'da dawladnimada jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya lama taabtaan bay ahayd soo agara dani uma ordeynin meesha la yiraahdo Addis Ababa dadka qaar ba waxay ku doodaan qaar ba waxay ku doodaan farmaajo ka soo xiray waxba kama soo xidhin farmaajo Ethiopia meeshay danteeda ka aragto cidna uma joojiso marka ay danteedu noqoto in la kala furfuro oo la kala kaxeeyo waa la kala kaxeeyo dab dhagax lagu dhuftay baa laga dhigayaa Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamed baa dab dhagax lagu dhuftay ka dhigay Soomaaliya asagii baa shisheeye iyo imaaraad iyo balaaye iyo khadar iyo waxayna aqoonin oo khamiisyo qabo cambuuro wata ayuu keenay dalkii wuxuu damcay marka inta yar ee dhaqaalaha ah ee isaga laaluushka loo siinayo dalka laga gadanayo inuu iyagii ku sii dulaysto nin walba wararada tag buuyay ta ka dhaxdhici doonta Xasan iyo Axmed Madoobe yaan anigu hadda sii yaabanahay maxaa kala dhici doonta tu ilaahay xaalkeeda ogyahay ay Soomaaliya way kala tagtay way duntay wax dawladnimo ah iyo wax nidaam ah oo maanta la dhigi karo iikaadi xagee ka jira xagee maya xaqiiqda in laga hadlo way anu ma caadifad hadlayo wala anigu fiiri Axmed Madoobe xanaaqeen wali xanaaqeen wali uu joogay dhawaan xanaaqdan kama hadlaya baan ugu wareegada hadii say xanaaq wareegada dani ba xanaaqeen dani xanaaqan marka yaa dawladnimada Soomaaliya maya yaa keenay madaxweyne Xasan Sheekh ma dhageystay codkiisa muuqaalkiisa ma daawad nin kaste oo Soomaaliya oo ka yaani dal shisheeye taga madaxweynaha markaa jooga cayriye waa runtii isaga cayriye cid walba isaga cayriye dalka isaga kala diray Xasan Sheekh wuxuu sameeyay waa meel walba ku jira eg Xasan Sheekh wuxuu sameeyay uu ku talagalayaa wax ka dhacay ma jiraan wax allaale iyo waxa uu sameeyo waa badee sidan anigu aan ula hadlayana waa sida ku haboon ee ay tahay in loola hadlo oo loo sheego in dalka Soomaaliya una Muqdisho ahayn muduloodna ayna Soomaaliya ahayn ana ku sheeg maya luqadda uu fahmaya tan ah yiri ma reerku waa reer sharfan baan yiri anigu waxaan ka hadlayo waa Xasan Sheekh reer kama hadlin laakiin waxaan Xasan Sheekh u sheegayaa baan ku eri di adiga maskaxda lagaaga jiro waa gooni Xasan Sheekh inaanay Muqdishona Soomaaliya ahayn muduloodna ayna ahayn Soomaali ee Soomaaliya ay ka ballaaran tahay oo Soomaaliya oo dhan madax u wada yahay waa inuu taa fahmaa muhiimadu waa midda laakiin midda lagu kari laayahay ee uu fahmayaa lagu kari laayahay ayaa tan war Soomaaliya oo dhan xukun anaga ta afar oday meel isugu keento xagee xukuma ta afar oday meel isugu keento ariya Xasan loo jeedaa idhaha hadhihin madaxweyne Soomaaliyeed adduunka taariikhda ma aragtay madaxweyne Soomaaliyeed oo mucaarad kula kulmay dibad madaxweynuhu ugu horeeyay intuu soo fadhiistay oo waxa uu yeelay Shariif yiri aniga adiga ilmaadeeraha maxaan ku idhaahdaa to maxaan ku idhaa maxay ka rabtaa adiga maxaa ka maqan adduun dahab diinaar dollar iyo duni aniga weydii hogaamiyaha noocaasa ee ummadda Soomaaliyeed in loo sheego waa waajib anaga hadduu ishagaajiyo kama quusanayno 2 sano oo hadhay 2 sano waxaan leenahay dhexdooda war ishagaaji oo Ilaahay iimaanka igu sugdhe oo ducayso oo bal Qur'aan akhriso oo ogow inaad madaxweynihii Soomaaliya inaad tahay ogow waxa kaliya ee uu eg u raadinayay ninka la yiraahdo Shariif Sheekh Axmed wad dareemi kartaa waxa way marka anaga Kenya wakiil naga ma aha dal kale oo wakiilka ah dalkan Soomaaliya ma jiro madaxweyne dalkan adaa lagu doortay dalkan iyo dawladdan sida ku haboon ku hogaami wada yeelaynin Soomaaliya banaadir ha kugu filaato markii Ilaahay xilka ku dhaafiyo eed meesha ka tagto Soomaaliya way isku imaanaysaa way tashanaysaa waliba anigu waxaan soo jeedin lahaa oo aan ku yaani maaragtay dhihi lahaa dawladku meel gaar oo degdeg in la sameeyo dalka loo sameeyo oo ku haboon inay samata bixiso maanta dalkan kii samata bixin lahaa meesha ma joogo aad buu maasan yahay saaxiibka jaamac galada ayuu ahaa intaas ku soo gabagabeynayna qodobka intaan markale kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo